Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ay ku xidhan Hanilaki channel. Qisadan maanta aan inoo hayo waxay ka hadlaysaa istighfaarta, dembi dhaaf in la weydiisto Allah, istighfaarta fadligeeda. Qisadan sheekh carab ah ayaa ka sheekeynaya. Wuxuu yidhi nin ayaa meel ka shaqeynayay ay dhibaato kasoo gaadhay, shaqadii uu hayay ayuu ku dhaawacmay. Kadibna dhakhtarka ayuu galay. Dhakhtarkii markuu kasoo baxay ninka mushaharkiisa uu qaadan jiray aad ayuu u yaraa 2500 riyaal ayuu ahaa, lacag aad u yar oon kafeyneynin. Xaasna wuu ahaa oo guursaday. Markaa dhakhtarka uu kasoo baxay ayuu ninku gabadhiisi la hadlay. Wuxuu yidhi waad aragtaa dhibaatadan ku jirno iyo inay lacagtu nagu yar tahay, sidaa raalli ka tahay oo igula joogaysidna waa okay. Haddii kale aad raalli ka ahayn oo rabtid inaynu kala tagnana sidaa jeceshay ayaan kuu yeelayaa. Gabadhii ninkeedu waxay ku tiri ilaahay ayaa aniga iyo adigaba ina arsaaqaya, saasaynu ku wada joogaynaa, raalli ayaan ka ahay. Muddo ayaa kasoo wareegtay oo ninkii xaaladii uu ku jiro, lacag yaraantii, shaqadii uu ka shaqeynaya lacagta yar, iyo sidoo kale iyagoo isqabay 2 sano aan wax caruura dhalin. Ninkii markaa wuxuu yidhi waxaan u yeedhay qof quraan igu akhriya, oo wuxuu yidhi waxaan ka shakiyey hamigan iyo culayskan i saaran iyo dhibkan aan ku jiro inay tahay xasad ama inay tahay il igu dhacday inay tahay. Markaa qof baan u yeedhay buu yidhi suu quraan noo saaro. Ninkii quraanka saarayay ee u imi ayaa ku yidhi ma idin sheegaa kansi aad u weyn oo dhibaatadana idin haysata aad kaga baxaysaan? Ninkii wuxuu yidhi haa ii sheeg, waa maxay kansigaasi? Ninkii wuxuu ku yidhi istighfaarta badiya, istighfaarta laasima oo badiya, inshaa Allah ilaahay baa faraj idinku furi doona oo dhibka idin haysta wuu idinka bixi doonaa. Ninkii maalintii uu ninkii u sheegay inuu istighfaarta badiyo, istighfaartii ayay ku dadaaleen isaga iyo xaaskiisii. maasha Allah, alla wuu ka aqbalay. yacni kansigii weynaa alla wuu siiyey. Shaqo wanaagsan ayuu helay ninkii oo jaamacad ayuu ka shaqo galay. lacagna uu ku qaadanayo, lacagtiisii hore ka badan 6000 oo riyaal ah. ilaahay wuxuu ku arsaaqay inan yar ayay dhaleen. Xaaskiisiina waxay heshay shaqo macalinimo ah oo macalimad ayay noqotay. reerkii waxay heleen hanti, gaadhi ayuu u iibiyey xaaskiisii. ilaahayna ubad wuu ku arsaaqay. Markaa sheekhan ka sheekeynaya qisada ay ninka iskaranayaan. Wuxuu muddo kadib ayaa ninkii arkay. Markaa waxaan ku yidhi buu yidhi waar hebelow, xaalkaagana waan ogaayey, imikana waan arkaa xaalkaagu sida uu yahay, maxaad heshay? waa maxay kansigan weyn ee aad heshay? wuxuu yidhi haa waa run, kansi aad weyn ayaan helay. waxaan ku yidhi buu yidhi muxuu yahay kansigaasi? wuxuu yidhi istighfaarta ayaan badinay aniga iyo xaaskaygu. markaa sheekhu wuxuu weydiiyey intee ayaad akhriyeysay, yacni intee maalintii imisa jeer ayaad tirada ayaad istighfaarta akhrin jirtay? wuxuu yidhi 3000 oo jeer ayaan istighfaarta akhrin jiray. gabadhayda xaaskayguna sidoo kale way akhrin jirtay. kamaanan yareyn jirin buu yidhi 3000 inaan ka badino mooyaane. maalin walba inaan 3000 oo jeer ama aan ka badino oon istighfaar alla weydiisano, istighfaartaan akhrin jirnay. wuxuu yidhi khayr fara badan iyo nimco fara badan ayaanu dikriga weyn ka helnay. qisadan cajiibkaa sheekhu ka sheekeeyey. istighfaarta waxay tahay shay aad weyn, yacni kansi aad weyn oo ilaahayna siiyey. carabkaaga aad ku helaysid kansigaas. maaha wax kaaga baahan shaqo, waa wax kaaga baahan bis xil walba iyo meel walbaad joogtid. waxaan ka ahayn markii aad suuliga ku jirtid. inta kale oo dhan haddaad fadhidid, haddaad shaqaynaysid, in istighfaarta aad ku dadaashid, carabkaaga inaad bartid oo ku calcalisid. kansi aad u weyn weeyaan. haddii niyadaada aad gelisid istighfaartii inaad alle dembi dhaaf baad ku weydiisanaysaa, waayo dunuubtu waa waxa inaga calinaya khayraadka alle ina siiyey. macaasida iyo dunuubta aynu galayno ayaa inaga calinaya oo maxay ahaydey inaga hortaagan. alle inaynu dembi dhaaf weydiisano
si aynu u helno khayraadka uu allaynu dambi dhaaf weydiisano si aynu u helno khayraadka iyo nimcooyinka ilaahay. qof baa u baahan inuu ilmo dhalo, qof baa u baahan inuu shaqo helo, qof baa u baahan inuu taajir noqdo, qof baa u baahan inuu lacag helo xalaal ah, qof baa u baahan in imtixaan uu ku guuleysto, ama jaamacad ha ahaato ama dugsi ha ahaato sare, ama waxbarasho kale ha ahaato, in imtixaan uu gelayo ku guuleysto. qof walba hamigiisu meel ayay tahay. qof baa u baahan inuu guursado. markaa waa inaad istikfaarta aad ku dadaashid adigoo niyadaadana keenaya, inamal acmaalu binniyaat, adigoo keenaya niyadaada yacni qalbiga aaminsan in istikfaartan uu alla kuugu dambi dhaafo, in khayrka iyo wanaagga aad rabtidna aad helaysid. nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man lazim al-istikfaara jacala allaahu lahu min kulli dayqin makhrajan wa min kulli hammin farajan warasaqahu min xaythu laa yaxtasib. si alle hamigaaga uu kuugu rumeeyo, yacni hami wanaagsan ood leedahay aad u gaadhid, cidhiidhiga iyo dayqa aad ku jirtidna alle uu kaaga saaro. istikfaarta badi, allena wuxuu kaa arsaaqayaa meelaadad ka filanaynin, min xaythu laa taxtasib. sala allaahu calaa xabiibana maxamed. maantana waa maalin jimco mubaarak ayaan idin leeyahay. xabiibkeena aynu ku salino. allaahuma salli wasallim wabaarik calaa nabiyina maxamed. insha allah qisaska in lagu cibro qaato oo waxyaalo badan laga faa'iido ayaan usoo gudbinaa. insha allah qisaska waa inoo soo badin doonaa hadduu aan la idmo. ku xidhnaada channelka. intaynu qiso kale kaga kulmana hadlaya fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.